gogashii tacsida ee guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika uu gurigiisa ugu dhigay ganacsade Mahad Cumar Cabdi Mahad Libaax ayaa lagu soo khatimay magaalo xeebeedka Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. khatimka Qur'aanka Kariimka iyo ducada ayaa asal u ah gabagabada gogashaasi loogu duceynayay Allah u naxariistay ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ugaas Faracade iyadoo dhammaan duubabkii iyo dhaqankii iyo mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadashayna ay wada qireen samafalka iyo nabadeynta ku salaysnayd ee ugaasku lahaa. dhammaan qaraabada iyo asxaabta timid aad baan u mahadcelinaynaa naga soo qayb gashay quraan akhriska iyo tacsida aad baan ka mahadcelinaynaa waxaan oo bilaaban doonaa tacsidii iyo maaragtay duceyntii ugaaska Cabdullaahi Faracade marka insha Allah waa maasantihiin waan soo dhaweynaynaa aad baan ka mahadcelinaynaa si aad u sharafta leh u timideen oo noo soo qayb gasheen anaguna ninka la yiraahdo sidoo aan maaragtay soo dhaweynaynaa. munaasabadani waxa ay daaran tahay tacsiyada iyo ducada loo duceynayo ugaas Cabdullaahi oo runtii dabcan dadku ka dharagsan yihiin gariisuna hadda waqti xogaaba ka soo wareegay nin runtii dadka yaqaanay aad iyo aad ay u amaaneen wanaag fara badan ay ku sheegeen nabiguna sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay antum shuhadaa'ullahi fil ard ilaahay uu haysto ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ugaas Faracade waxaan uga taxsiinaynaa naftaaya iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan dhaqanka iyo ninka la yiraahdo ugaasyada salaadiinta iyo dhammaan dowladda Soomaaliyeed waxaan uga taxsiinaynaa iyo nafteenaba ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ugaas Faracade ma ahan runtii annaga kaliya naga dhintay wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed nin dhaqan oo wuxuu ahay Soomaali ka dhaxeeya annaga naga dhashay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugaas runtii waxaa baxay Soomaaliyeed oo haddii Ilaahay ku roon yahay Soomaali oo dhan gilgilay ilaa raas Gambooni raas Casayr dad waxaan arkay ilaa waqooyiga xataa ka soo tacsiyadeynaya oo xataa weligood ay arkeen ugaaska aan laga yaabin laakiin maqalkiisa iyo qabashadii waxa uu qabtay uun kaliya maqlay marka waan u duceynaynaa maanta wax kale uma qaban karno inaan u duceyno oo niraahno qabrigiisa Allah u waasiciyo malaa'iktu raxma Allah ku aadiyo ayaan leenahay. Allah u naxariisto ugaaska dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay dhammaan waa ka tacsiyadana ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ilaahay u naxariisto sabar iimaan dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay haddaan nahay Allah naga wada sabar siiyo si gaar ah qoyskii oo ka baxay ilaahay ka sabar siiyo dhammaan akhyaarta sharafta leh reer Cape Town ee meesha jooga aniga asbuucun baan joogaa Soomaaliyan ka imid waan ku faraxsanahay maanta inaan kulankan ka soo qayb galo tacsida ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi ugaas Faracade wasiirkii wasaaradda cadaaladda federaalkana Xasan Macalin uga qayb galay magaalada Muqdisho ee dalka aan maanta uga qayb galayo halkan magaalada Cape Town ugaaska Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto jannatul firdawsana abaalkiisa ka dhigo ahalkiisana sabir iyo iimaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo inagaba ay naga sii ayaan rajeynaya insha Allah tabaaraka wa ta'aala. أنا مرتي وأنا UK بكامل مركب ماشى ما أسف لي لكن ما دام الأيه تعسيد غيب عن كقاعدنا يا إلى سبحانه وتعالى وسهلنا حريستو إلى إنسان ما عنا قصيو. dhanka kale waxaa qadka si toos ah u soo galay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalkani Koonfur Afrika oo isaguna ka tacsiyay gogashaasi lagu qabtay magaalo xeebeedka Cape Town oo tacsiyay dhammaan dadkii goobtaasi ku sugnaa iyo waliba ehelka khaaska ah ee ugaasku ka baxay odayaasha dhalgaradka ummadda Soomaaliyeed oo fadhida meesha iyo kuwa aan fadhino waqti u helino aniga iyo tiimkayga diblomaasiyiinta aan ka mid nahay waxaan halkan tacsiintii raayada ugu direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeridii ku timid Allah u naxariistay ugaaska ummadda Soomaaliyeed uu ka dhintay ummadda Islaamku ka dhintay waan ka tiiraayoonaa waan u duceynaynaa ugaaska geeridii ku timid waa ma dhintay waa Ilaahay dhammaanteen waa wada soconaa Ilaahay ha noo kala dheereeyo asagana qabrigiisa Ilaahay waasax uga dhigo
hadalkayga intaasoo ku egyahay tacsiidaasan ay ahayd marka intaas naga gadooma intii meesha fadhida anigoo ku hadlahay magaca ummadda Soomaalika iyo dibmaasiinteeda jooga safaaradda iyo shaqaalaha anigoo ku hadlay afkayga ka Mustafa Shirwa ahaan iyo walaalaha ajaaliyada gobolka North West iyo Northern ee gudoomiyaha u ahay waxaan rabaa inaan halkan ka tacsiideeyo tacsiidii ku timid ugaaskeena qiimaha badnaa ka mid ahaa ugaasadii waxgalka ahaa farkutariska ah ee noo haray inaga geeriyooday inaan tacsiid u diro oo aan iraahdo Allah u naxariisto gadaashiisna Ilaahay nama fidneeyo asna jannatul firdaws Allah ka waraabiyo walaalihii oo ka baxay beelweynta Karanle qaasatan mursadana waxaan Ilaahay ugu tacsiideeyo sabir iimaan Allah ka siiyo dhamaantiin ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay guddigii qabanqaabada oo horgacayay Mahdi Libaax waxaana hadaladoodii ka mid ahaa magacayga oo meesha la keenay waa rag badan oo iga fiicana jooga xooga waa la amaanay waana idinkaga mahad celinayaa guul weyn oo noo soo hoyatay arrintaas ugaaskana Allah u naxariisto waxaan halkan ku soo xireynaa tacsiidii ugaaska adduunka daafiisa kala dhaceysay qaybteeda South Africa oo shalay noo soo bilaabatay maantana aan rabno inaan ku soo gabagabayno halkan magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed oo loo yaqaan Goobe waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan dadkii nagala soo qayb galay ducadii ugaaska ayaan dhammaantood u mahad celinayaa waxaan ka bilaabayaa culamaa udiinkii oo saakay 3 qadmo akhriyay waxaan ku xijinayaa barnaamijkii ahay bacdal qudbo ka bacdi oo Soomaalida South Africa ku nool oo dhan ay isugu timid qaybaheeda dhaqanka ganacsiga dhalinyarada waxaan u mahad celinayaa qabiilaadkii walaalaha ahaa ee si gaar ah isu soo xilqaamay noogu yimiday tacsiidii ugaaskeena nagala qayb qaatay waxaan u mahad celinayaa cid kasta ee ka qayb qaadatay dhalinyaradii shaqeynaysay waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan walaalaha aan groupka ku wada jirno ee Karanle ee adduunka caalamkiisa oo dhan jooga ee nagala qayb qaatay maanta xafladaas waxaan u mahad celinayaa Xaaji Mire indhayare oo noo soo xiray hadda gabagabadii shirkaas waxaan u mahad celinayaa dhammaan General Bariise Gaafow madaxweynaha mustaqbalka Xasan Cali Khayre dhammaan rag badan oo aan halkan lagu soo koobi karin oo magac iyo mansab Soomaalida dhexdeeda ku leh dhammaantood aad baan ugu mahad celinayaa kulanka ducada ee ugaaska oo labadii maalmood la soo dhaafay guriga ay tiilay ducada iyo kulanka Soomaatinka waxaan insha Allah noo soo xiri doona oo noo soo gabagabay doona madaxa qabanqaabada iyo kulanka ducada ugaaska xildhibaan Mahad Cumar Cabdi waxaan u mahad celinayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee South Africa qaasatan jaaliyada beelweynta Karanle guud ahaan tacsiidii iyo ducadii kulankii baroordiiqda ahaa ugaaska ee dalka South Africa loogu dhigay gogashii furantay Khamiistii ilaa caawa oo Sabti ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa in allaale inta nagala soo qayb gashay Soomaaliyeed dhaqanka iyo ganacsatada aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka socday dawladda federaalka Soomaaliya dhamaanba waxaan u mahad celinaynaa mahad celintaas guud waxaan ku faraxsanahay gogashii Soomaaliya oo dhan nagala soo qayb gashay midigteeda waxaa fadhiya Cabdirasaaq Badbaado Cabdiraxmaan Koobe oo maatay mataqaanaa dhaqaaleynta iyo wax walba oo gooshan ku baxay qayb libaxad ka qaatay biixda waxaa iga fadhiyo mataqaanaa walaalkay gudoomiye Calas Goore gudoomiye Calas waxaa dhinac kale ka sii fadhiyo Liibaan Cabdi Abdulo oo asaguna dhalinyarada mataqaanaa active-ka kamid ahaa iyo anigoo Mahad Cumar Cabdi oo ay gogashu xaafadeeda ay taalay gogashan waxaa ka soo qayb galay safiirka xildhibaano qonsuliyado prime minister kii hore ee Djibouti ahna afayeenka baarlamaanka Djibouti
waxaa kasoo qayb galay xildhibaano Soomaaliyeed oo fara badan oo wadanka ku nool waxaa nagala soo qayb galay safiirka Soomaalida ee South Africa u jooga waxaa nagala soo qayb galay safiirka South Sudan hadeer u jooga dowladda Soomaaliya iyo dhammaan ganacsatada dhaqanka siyaasiyiinta mutacalimiinta ku dhaqan Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa waxaan mahad ballaaran u celinayaa idaacadaha oo maartay qayb libaaxad leh ka qaatay waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa tiimkii taageeraday oo walaalkay Cabdiraxmaan iyo badbaado iyo mataqaana Calas iyo Liibaan iyo horeeyaan oo mataqaana gacan libaax leh ka qaatay hawshan wabillahi tawfiiq maxamed axmed siyaad Somali Cable TV Cape Town Koonfur Afrika